cabdirasaaq khaliif axmed wasiirka howlaha guud iyo guryeynta Somaliland oo maanta wax laga weydiiyay sababta aanu inta badan uga hadin xaaladaha siyaasadeed ee ka dhacay deegaanada bariga gaar ahaan gobolka Sool oo wasiirku ladashaan ka soo jeedo ayaa kaga jawaabay wala ay cala ka muuqato waxaana kamid ahaa wasiirka hadaladiisii حفلة مرتبطتي وحكوش عن هاي الصحافة أنا ضد بروفيشنال وحشقة مركز تاجر هرتك على شان هو شيء مكان واحد هو شيء مرة سياسة سوماليا تقفل بالمرجلين معي حاول تاجنا هنا وانكوش غيره وسياسة سوماليا يستكل وزيركو markale wax laga weydiiyay aragtidiisa siyaasadeed ee qadiyada Somaliland ayaa waxa wasiirku su'aashan kaga jawaabay luqad adag oo ku durayay saxaafigii wax ka weydiiyay su'aashan isagoo ka gaabsanaya inuu su'aad uga hadlo mowqifkiisa ku aadan Somaliland أو سؤال الدرع ما كان جواب يدا waxa weeye wasiir baan xukuumadda ka tirsan waxa fuliya xukuumadda iyo siyaasadda aan ka tirsanahay waxa ay ku shaqeyso wasiirkan isagu maanta hor yimid guddiga howlaha guud guryeynta iyo wadooyinka ee golaha wakiilada Somaliland si wax looga weydiiyay howlaha shaqadiisa ee wasaaradda uu mas'uulka ka yahay Cabdiraxmaan Arab Daawud TV-ga Kalsan magaalada Hargeysa.